الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رمضان السنة إن شاء الله وحن درس قاعدنا هنا قصة تتار من البداية إلى عين جالوت. شركة دي نبان كالورنية تتار منغوليان. labada magac bal hadda waan eegi doonaa Mongolian iyo Tatar waxay kala yihiin bilowgii halkay ka soo bilaabmeen ilaa Ayn Jalut oo jabkii ugu weynaa gaaray ahaa waa marka muddo 60 iyo 1 sano ama 58 sano iyagu waxay bilaabmeen dawladoodu samaysantay 1203 ama 600 iyo 3 hijrada qarnigii 7aad hijrada bilowgiis ama qarnigii 13aad ee milaadi bilowgiis iyo dawladoodu samaysantay wixii ka horeeyay beelay ahaayeen qabaa'il istirray ahaayeen jabitaanka ugu weyn iyaga wuxuu ku dhacay in Jalut lagu jabiyay meesha Nablus iyo Bisan u dhaxaysa Falastiin kamida 1260 ama 660 hijrada وقرني تضباطه برتميس كيس دحية طبعاً برتميس مرك التاريخ ذو وسيد هيركو كله هيركو واستوسع ذا أما عدد إنكم مثلا قلبي أسود الجوكسة هربي أهدى أسود الجوكسة أو نجح كتورته هيركو نجح حسكعنا يا واستوسع عنا يا لكن مد بكيريه كوه الرئي نجح مركو جو كيلو كدعي وحكينا يا xoog buu wax u yarkiciyay kii ku xiga uu ka yaryahay taariikhdu waa noocaas oo kale marka taariikhda muslimiintu laga soo bilaabo rasuulka kaleey salaatu wasalaam ilaa halkan aynu ka soo gaadhayno qarniga 7aad waa 7 qarni bay muslimiintu jireen xilliga waa hirarkaas ay ahayd maray muslimiintu meel sare marayeen maray meel dhexe marayeen iyo maray hooseeyeen markan nimankan soo baxayana waa maray hooseeyeen way oo sidaan malaha maanta xaaladda aynu ku jiro kala dawladda yar oo kala go'aan oo qolo waliba magac gooniya leedahay oo meel waliba isku waxaysan tahay isku xiran tahay waliba sida waa laga sii liitay hadda la yahay oo tusaale hadii loo soo qaado Xalab imaaray ahayd xilliga Xalab oo magaalo maanta Suuriya kamid ah Dimashqna waxay ahayd imaaray ahayd Urdun iyo magacaas ma jirinba Jordan ama Urdun طبعا مقعو جرا وبيغا لا يراهدا وبيغا u dhaxeeya Falastiin kala qaybiya qayb daanta galbeed iyo daanta bari daanta galbeed waa imka Yahuud haysata daanta barina de Urdunta kale kamid tahay webigaas Urdun la yiraahdaa webigi nabi Yaxya iyo loogu meeray baa la yiraahdaa iyo nabi Ciise iyo dhulkii laga soo saaray marka webiga magaca waxa iskale webigaas iskale halkaas Urduna Shawbak iyo Karak labada magaalo ka dhisna labadaana waxa haystay nimankii Salabiyiinta iyo iska haysta xilliga oo ay maaratay gacanta ugu jirtay inkastoo ay nimankii mamaalibtu marka dambe ka qaadi doonaan yani wadciis noocaasa dawladda yar xoog badan way jireen dawladda Khwarazm oo kale bariga Iran bay ka noqonaysay ilaa xuduudka China ay gaadhaysay maana dhulkan maanta ilmo taan oo dhan ay ku yaalaan Tajikistan Uzbekistan Qirghiziya Afghanistan dhulkaas oo dhan bay xukumi jirtay taasa ugu roonay iyaduna wax xidhiidhay dunida islaamka kala la lahayd colaad mooyaane faa'iido kale ma jirin marka hirarka taariikhda mid kamida ayuu noqonayaa ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir aayadda suuratul al-imran ku jirta waxay noo cadaynaysaa xukunka inuu Ilaahay hayo marba cidii cadaalad leh maaragtay wax ka agdhow yihiin cadaalad ka agdhow yihiin buu Ilaahay siiyaa sharafta xukunka siiyaa cidii ay ka soo dhamaatay maaragtay rafaadka iyo dhibaatay samaysay dulmi fara badan samaysana wa tanzi'ul mulka mimman tasha Ilaahay baa ka siibay xukunka ka qaada ciduu doonu Ilaahay duleeyaa ciduu doonana uu sharfaa gacantiisu maartay wax walba Ilaahay ku jiraan
marka qisaska dhacay xilliyada waxaa ka mid ah gaar ahaan markii uu hoolaa ka yimiday ayaa waxaa la yidhaahdaa meelahan markuu soo gaadhay ciraaq duleedkeeda ayaa ku yaroo dhalinyar ah laakiin aqoontiisu fiican tahay oo dadka dhisana iyuu la kulmay in dee laga wada cabsanaya nimankan mongoliyankana wuu arkay marka wuxuu ku yidhi adigu horta cabsi miyaadan iga qabin maxaan kaaga qabaa buu ku yidhi ay kamida ayda ilaahay baad ka mid tahay yani dee waa oday dhan oo xadka jayna laga soo bilaabo halkaa biyaha unbay jabaan u tallaabi kari waayeen wixii xaggaa bariga cadaadu ka soo baxda xigtay dowladda iyagaa iska leh halkaana waxay ka gaadheen yurub bay gaadhay dowladdoodu ayuu wuxuu ku leeyahay ay kamida ayda ilaahay baad tahay maxaan kaaga cabsanaya oo maxaad saa ii leedahay buu yidhi waxaan kuu leeyahay buu yidhi ninka adhi jirka ah marka uu adhigiisa inta badan waxaa la eega buu yidhi adhi jirka ay baa la eega aygaas ayuu wuxuu yidhi ku kolba xabadii gooni u yar baxda iyuu aygu soo celiyaa oo ku dhex daraa buu yidhi adhiga kale ummaddayadu marka muslimiintu way hallowday waan ogahay buu yidhi jidkii saxdaa bay ka hallowday marka aygii edbin lahaabaa tahay oo ilaahay soo diray tusi lahaa markaa rafaadkaagan wuxuuna tusi doonaa buu yidhi xaqiiqadayadii asalkayagii waxaan ahayn baan u noqon doonaa buu ku yidhi wayna dhacday asalkii inay u noqdaan marka nimankan la yidhaahdo mongolian ama tatar magaca hadhow baanu fasiri doonaa baan nidhi waxa soo maray dhowr hogaamiye waana muddo kooban muddada ay jireen ama 90 sano boqolka mayna wada dhamaysanba Timochin oo ninkii aasaasay ahaa Genghis Khan magacaas oo la baxay markii uu dawladda noqday iyo Genghis Khan la baxay laakiin magaca abiyi hooyadu bixiyeen Timochin baa la oran jiray kaas waa mid kamid ah hogaamiyaashoodii ugu waaweynaa dawladdana aasaasay adduunkana in badan bay baaratay Asia inteeda badan qabsaday qof dhigyacabana ahaa isaga inamadiisii intii uu dawladda hayay uun bay sii hayeen laakiin miduu awow u yahay oo Manco Khan la yidhaahdo iyaa intii awowgii sameeyey in la ku daray waad maqasheen hoolaaka dadka waxa uga caansan hoolaaka laakiin wuxuu ahaa askari galbeedka ciidamada dawladda Tatarka hogaaminayay buu ahaa Manco Khanna wuxuu ahaa boqorkii weynaa soo diray isaga hoolaaka soo diray buu ahaa marka halkaas saddex bay noqonayaan macnaha laba nin oo walaal ah weeye hoolaaka iyo Manco Khan Genghis Khan baa awow ah Manco Khanna waa ka ilaa Jarmalka gaadhay weeye Poland halka dalka nimka la yiraahdo Jarmalka la yiraahdo ay ku yaala caasimadan wadankan la yiraahdo Ukraine iyo tan Ruushka Moscow iyo Kiev uu gubay kuwa magaalooyinkaas oo dhan uu gubay marka nimankan marka taariikhdooda laga sheekaynayo micnaheedu maaha inay dad muslimiin oo gumaadeen dad muslimiin oo burburiyeen dad hanti muslimiin oo baabiyeen caalamka ciday gaadheen way burburiyeen nimankani Chinese bay saa u galeen Asianka kala dawladihii ka jiray bay saas u galeen dawladihii reer Yurub bay saas ay u galeen oo ay ka dhigeen un maaragtay magaalo walba sidii Baghdad oo kale Kiev iyo Moscow kale sida Baghdad oo kale bay ka dhigeen laakiin dadka ku nool ba kala badnaa dadka Baghdad ku noolaa 3 milyan iyo dheeraad bay ahaayeen laakiin dadka Kiev iyo Moscow ku noolaa waxa laga yaabaa inay 20,000 40,000 meelaha ahaayeen intiiba way gowraceen intiiba way laayeen sidii Baghdad u laayeen bi kuwan oo kalena ay u laayeen ka kale waxa weey waa qarnigii kuwaas waa qarniga hore inta badanna muslimiin ma ahayn nimankaas laakiin wixii hoolaaka ka dambeeyay hoolaaka wiilku dhalay ku sii dhalay oo Tokadar la yiraahdo Tokadar Ahmed baa loo bixiyay markii dambe suldaan muslimiin uu noqday halka wixii ka bilaabma hoolaaka tafiirtiisa ka bilaabanta Ahmed Tokadar kaasa muslimiin bay noqonayaan oo dawladihii Hindiya iyo Pakistan hadda dhulkan la yiraahdo ka jiray baalka Taj Mahal la yiraahdo wada aragteen baa sawirada wad ku aragteen baan u maleynaya waxa dhisay Akbar Shah nin la yiraahdo Mongolian dhisay muslimna ayaa dhisay ilaa waxay soo gaadheen marka kuwaasi xaggan Hindiya iyo joogay iyo qabiilada dahabiyo tii Ruushka qabsatay ahayd waxay dawladoodii soo gaadheen qarnigii 17aad 18aad ay soo gaadheen iyagu dawlado muslimiin ah ay soo gaadheen waxa kale iyaguna nimanka hogaamiyaasha Tatarka dhibka badnaa waxa kamid ah
nin la yidhaahdo Timor-Line ama Timor-Link carabtu Timor-Link bay tiraahdaa qolooyinkan luqada laatiiniga iyo ingiriiska ku hadla Timor-Line bay yidhaahdaan Timor-Langare nin Langara buu ahaa isagu ninkani marka nin muslim sheeganayay buu ahaa laakiin dhulkii muslimiinta oo dhan buu wuxuu ka dhigay baaba laga soo bilaabo Samarqand oo caasimadiisa dalka Uzbekistan imika ku taala caasimadiisa ilaa Dimashq inta u dhaxayso qabsaday magaalo kasto ay soo taagtay uu baabiyay Dimashq oo kale uu gubay gebigeeda say u dhantay uu gubay dawladda Cusmaaniyiinta halka imika Ankara ay ku taalo oo qalcad ahayd waaga caasimada Turkiga imika Ankara la yiraahdo qalcad ahayd dawladdu uu baabiyay Yazidkii koowaad uu qabtay noloshu ku qabtay oo ma aragtay maxbuus buu ka dhigay xabsigii buu ku dhintay dawladda Cusmaaniyiinta uu riday gebigeedii oo ilaa Yurub qabsatay buu riday markaas culimadii muslimiinta hadiya dadkii muslimiinta ku kacanayay wareedhe muslimiinta sheeganaysay kolkaad Shaam iyo dhulkan baabiiseen oo kula yaabanayn dawladdii muslimiinta imika riday xagee muslimiinimada iska qabanaysaa oo ay ka imanaysaa marka muslim buu kaasnay sheeganayay afartaasa ugu khatarsanaa nimanka soo maray dawladahooga maaragtay soo hogaamiyay way duhur tatar say ku soo baxday dawladoodii iyo tatarku ku bilaabmeen ayaynu halka ka bilaabay hadda Ilaahay yiraahdo tatarku waxay soo bilaabmeen qarnigii 7aad ee hijriga 603 602 ama 1203 ee dawlad ahaan dawlad noqdeen laakiin ka hor maxay ahaayeen ka hor waxay ahaayeen qabaa'il dega dhul hadii khariirada aad eegto waqooyiga dhulka Shiinaha imika ah oo Shiinuhu dadka uu xuduud ka dhistay deyrka weyn ee taariikhda laga sheekeeyo gidaar Chinese Great Wall wax la yiraahdo ma jiro deyr weyn oo China dhisan dadka uu ka dhistay saddex qolo bay ahaayeen Tatar Mongolian iyo Turki saddexdaas qolo oo saddexduba isku dad ah meel ka soo wada jeeda waa dad wada dhashay laakiin Turkigu dad iyagu waqtiga Umar bin Khattab islaamku soo gaaray bay ahaayeen oo muslimiin bay ahaayeen kolkan aan imika hadda ka sheekayna dadka la yiraahdo Turkiga la yiraahdo dad wada muslimiina aqlabiyadooda waa laga yaabaa qabaa'il yar yar oo meelaha dhulka Caucasus ku dhex jira ama meelaha Aasiya dhexdeeda ku qarsoon inay jireen laakiin dad muslimiin ay ahaayeen marka waqooyiga Shiine iyo bariga Shiina shacabka dega waxa la oran jiray shacab Tatar baa la oranayay waa xuduudka Shiina dawladdii boqortooyada Shiinaha waaga jirtay Zingiyan baa dawladda la oran jiray waaga dawladda boqortooyada Shiinaha xilliga jirtay Zingiyan baa la oran jiray marka deyrka wixii waqooyi ka xiga dadka degan Tatar baa la oranayay dadka marka waxay noqonayaan Mongolia koonfurteedii bay noqonayaan Mongolia dhulka la yiraahdo koonfurteedii bay iyagu noqonayaan wariya dhulka Shiinaha iyo noqonayaan waqooyiga dhulka Mongolia iyo bariga dhulka Ruushka imika loo yaqaano dadka degana Mongolian baa la oran jiray waa laba shacab soo ma arkaysid laba qole kale yihiin laakiin mar waxa jirtay shucuubtii meesha deganayd ay xoog ku wada qabsadeen dadka Tatarka la yiraahdo dawladdiina lagu magacaabay dawladda Tatarka lagu magacaabay iyo mar dawladdii ay qabsadeen nimankii Mongolianka ahaa dadkii meesha deganaay oo dhan lagu magacaabay Mongolian lagu magacaabay markan imika aynu ka sheekeynaa Genghis Khan soo baxayna waa marka Mongolianka Tatarkiina waxay ka mid yihiin qayb ka mid oo bayin marka laakiin magaca Tatarka baa la iska qaatay waddan halkaas ka soo baxday الناظر إلى الأرض في ذلك الوقت حلقا قرن التضباط هجرية بلوغيس أما صدحية طبنات ميلادية الدون كوحة كجري لبق ودود بكجر انت هنا من كان على شيء جدي ويوم نقول تيس دحاب بينقنا يعني مركا قوات صدحات عصب ومركا أنفض صوتي تاريخ هرب ملء ميلو راع ملء تطبيلو يسكو تكتغيون يسكو يمدو فوق ونمشي كسويري بها سيدي يسكو تغين بسؤال طه سي isugu tageen waxay ahayd beel kasto beelaha Tatarka ama Mongolianka kamidii waxay lahaan jirtay suldaan la ixtiraamo laga dambeeyo oo xukuma sida qabaa'ilka Turkiga ay suldaan u lahaayeen
oo taariikhdeenii hore sanadkii hore aynu ku soo aragnay markaynu dowladdii mamaaligta ka sheekeynayna waa laga yaabaa inaynu dul marray salabiyiinta markaynu ka sheekeynayna waa in dul marray maayo waxa soo galaya mar walba saljuukiyiintii baa soo galaya marka hadda saljuukiyiin soo galaan turkiga waa inaad ka sheekaysaa iyo cusmaaniyiintii markaynu ka hadlaynayba qabiil kasta marka suldaan buu leeyahay qabaa'ilku way kala sarsareeyaan markaa matalan qabiilada la yidhahda kiyaan oo qabiilada timojen ama Genghis Khan ka soo jeeda qabiilooyinka sare ayay ku jirtaa halka qabiilada miyaarka la yidhaahdo oo kale ama qabaa'il kale oo zadalambo iyo la yidhaahdo ay yihiin qabaa'il hoose darajada hoose ay matalan zadalambo oo kale waxay iyagu aaminsanaayeen wiil aan sharci ku dhalan inay ka tafiirmeen yani ilmo bilaa sharci ku dhashay inay zadalambo ka tafiirantay marka qabiiladaas cunto xataa qabaa'ilku cuntooyinka cunaan baa kala duwan qabaa'ilada kiyaanka la yidhaahdo kale Genghis Khan uu ka soo jeeday fardaha way cunaan hilibkooda caanahoodana way cabaan maxaa la yidhaahdaa riyaha way qashaan shimbirahana way cunaan shimbiraha marka haadka ku jira xataa way cunayaan laakiin kalluun iyo jiir iyo masas iyo ma cunayaan iyagu qabiilada zadalambo la yidhaahna jiir iyo maaragtay masas iyo waxaa dhulka gurguuranaya ma soo dhaafayso haddii way dhaqdaan fardo caanahooda way cabbi karaan laakiin hilibkooda ma cuni karaan waa ka mamnuuc qabaa'ilkii mongoliyaanka o dhan baa soo weerar hadii la yidhahdo zadalambo maanta faras bay qasheen hadii la yidhahdo waa maca salaam waa u dhammaatay darajada ayaa idin gaarsiiyey baa la odhanaya qabaa'ilkuna waxay marka ahaayeen qabaa'il hamaj ah dad sida dee iskaga nool beryihii hore sidii dadku u noolaayeen oo dharkooda oo kale ma aha dhar labis qurux badan iyo waxan ma aha wax ka samaysan hargaha xayawaanka ay dhaqdaan ama xayawaanka ay ugaarsadeen hargahooda ka samaysan matalan shaarka oo kale ninkuu gashan yahay waa haragiyo sidiisa iskaga furan laakiin intuu soo laabo halkan ka taxaya laab buu kaga taxayaa maaragtay saan yaroo dun yaroo dheer buu kaga taxayaa cidhifyadu wuu iska qaawan yahay dhinacan iska qaawan yahay surwaalka uu xidhan yahayna waxa weeye waa lug harag luga iyo harag luga oo kala gooni ah dabadiisu hadday doontaa iska qaawanaato marka sanadka 6 bilood oo ka mid ah waa baraf dhulku ay degan yihiin qabow ah oo inay maaragtay dhar kala kaankaan isku dul toltoleen iyo harga ay xidhaan mooyaane qofku aanu socon karaynin xayawaanaadka ay ku nool yihiin oo fardo iyo nooc la yidhaahdo yaak oo looda u eg muuqaalkan hore loo buu u eg yahay laakiin dabada gamaanka farduhu leeyahay iyo dabada dameeraha kale ayuu leeyahay laakiin xag hore geesana uu leeyahay loona uu egayo de sidii loodii uu eg yahay iyo geel laba kurusley waxa u badan turkiga markaa nimankan kuma badna uu ku yar yahay iyo farduhu aad bay u tiro badan yihiin meesha ugu badan yihiin marka farduhu xilligan iyo geela laba kurusleydii dhulka way qotaan oo dee ile barafkiibaa fadhiisto -40 -30 buu iyo dhulkii maraya waa saxaraha weyne goobi la yidhahdo imika intiisa badan uu ruushka ka tirsan yahay ayaa dhulka ay deganaa iyo mongolia ayay deganaayeen xagaagiina dhulka wuu yar diiraya waxa soo baxaya ubax iyo qoyaan baa soo baxaya xilligaa marka xooluhu way u wada dhalaan barwaaqay dhulku u yihiin waana xilligay ugu badan yihiin weerarada iyo isku qaadida duulaame isku qaadaya dhaqamadooda marka waxa ku jira gabdhaha waa la iska dhacaa matalan qabiiladan aan sheegayna Genghis Khan waxay inta badan ka guursadaan laba reer tataarka way ka guursadaan qolo kale oo jila leeyana way ka guursadaan laakiin qabaa'il kale kama guursadaan iyaga dhexdooduna gabdhooda way iska guursadaan marka isaga oo koox reerka kamida wata da'diisuna ay sodomeeye meelaha tahay ma Genghis Khan madama mar dhalanba marka waa aabihii oo reerka suldaano ah yaa waxay arkeen gabadh caruusada oo reer inta laga keenay reer kale lagu sii wado reer caruusadii iyo wixii markay arkeen oo waxay arkeen qolo budcad oo dhexda u joogsato oo dhacaysa caruusadii way ka rideen qoladii budcad ahayd bay laayeen
ninkii arooska u ahaa halkana wuxuu ku dhintay dagaalkiibu ku dhintay kala ridashadiibu ku dhintay naagtii bay ku yiraahdeen qolama tahay reer on jilaan haybat waa reerkii ka guursanayeen waxay ku yiraahdeen adigu isaga bahadir ba magaciisa loo dhanayo odayga bahadir magac turkuguna la baxan weeyaan bahadir waxay ku yiraahdeen ilaahay baa ku keenay waa gabadh on jilo qurux badan inaad guursataa doonaysay tan iska guurso waa naagta nin baa qabay naayimsu ku qabo 10 cishaan aroos ahayn bay tiri khalaas imikaana ku guursanayay buu gabadhii gashanteeda iska forsato iska xishooto way ku ogolaatay khalaas uu ka haystay ilmaha horeeyay dhashay marka oo Timojin noqon doona ma isaga aabow ah mise kii laga soo dhacay la diliba aabow ah mooy ilaahay baa garanay laakiin isaga korsaday ala kulli xaal Jankiis Khan marka wuxuu Timojin ninka la yiraahdaa reerku rafaad buu soo maray oo marka aabahood uu geeriyooday isagoo meelaha 9 jir 12 jir ah uu isoo aabihii la dilay tataarka dilay baashan la yiraahdo kala argoosuguna reerka kama hado isagoo markuu sii dhimanay buu ku yiri Timojin waxa idilay tataar baa idilay nin kasta oo tataar oo aad aragtana waa inaad qoorta ka goysaa isaga awowgiina tataar baa dilay isaga awowgii oo aan bahar loo dhanayay intay qabteen tataarku way dawladda Shiinaha u shaqeynayeen u dhiibeen dawladdiina intay odayga musbaartay musaabiir gacmaha kaga taagtay iyo lugaha iyo meel ku qalalay halkii bay nafta kaga baxday oo lagu daayay magaalo albaabkeeda yaa lagu daayay aan bahar waana nin dhan oo reer dhan suldaan oo ninka la daldaliyo meesha lagaga tagay taas horna way jirtay aabihiina way sumeeyeen marka isagana reerkii baa laga saaray Timojin markuu yaraa isaga iyo walaaladii hooyadii iyo aayadii iyo islaam kale u shaqeynaysi oo waxa la yiri naagta uu soo dhacay baa balaayo wadatay oo reerkii baa laga saaray hatta adeeradii baa ka soo horjeestay aakhirkii laakiin ninkii duurkaas uu ku noolaa meelahaas uu ku koray maleeshiyad buu isku keensaday wax buu mideeyay oday aabihii ay walaaloobeen xaq dhig ku walaaloobeen oo reer kale haystay buu u tagay kiiba la mideeyay marka kiina markii dambe uu ka takhalusay isna wuxuu isku keenay marka reerihii oo dhan buu isku keenay reerihii oo dhan ayuu xoog ku mideeyay isku keenay markuu reerihii oo dhan xoog ku mideeyay isku keenay waa markaas 1203 ama 603 hijrada wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha tataarka magaciisana la yiraahdo Jankiis Khan la yiraahdo oo Timojin loo dhan maanta kadib saasuu ku sameeyay horta markaa nin rafaad isagoo ku soo noolaa rafaadna ku sameeyay ayuu ahaa wuxuu isku dardaray buu dadkiina dastuur uga dhigay qayb shariicada islaamka ka soo qaatay qayb kiristaanku ka soo qaatay qayb buudism buu ka soo qaatay qayb taawiyada diin la yiraahdo China ka jirto ka soo qaatay uu isku dardaray yaas boog la yiraahdo uu qoray kaasa dastuur diin abuud dastuurkooda marka waxyaabaha ku jira waxa kamid ahaa inaanay dadka Mongolianka ama Tataarka jirka inaanay meeyranin uskag inay iska lahaadaan waligood uskag iska lahaadaan jirka ninkii meeyda waa dil faraska qofka fuushan alaabay haday ka dhacdo oo soo daadago waa dil laakiin ka dhulka jooga waa inuu dhiibaa diisuu soo dhaaro adoon hadduu ka baxsado saaxiibkii uu tago ku kale uu soo celin waayo adoonkuna waa dilkii soo celin waayna waa dil wax wada dil ah iyo sharcigiisu ah wada dil saas waayadii dambe kulku Shiinaha qabsaday iyo dhulka muslimiinta qayb ka qabsaday culimada uu la tashan jiray inta waa la sheegaa culimada wax weydiin jiray laakiin culimadu waa laba waa nin iskala sheekaysto naftiisa oo cabsanayo oo wuxuu sheega iyo nin ku yiraahdo wartay waxa kan dhagar qabahay maartay balaayada sameynaya kan seen ku yiraahdo markuu dhowr jeer hadalka isku celceliyaan qoortu muku goyn jiray marka hada quwadda ninkaas sameeyay hore dawladdu sii jirtay ma aha taariikh hore ma laha meel loo raac lama garanayo marka waxa jiray iyaga hortood laba quwadood quwadda kuwad muslimiinta ah muslimiintu dhul balaaran oo masaaxadiisu maanta dhulka dunida loo yaqaanay Asia iyo Europe iyo Africa ku taala ayay ahaayeen oo xagga galbeedka China ka soo noqda ilaa soo gaara Europe iyo Andalus gaara marka khayraadda ayay ahaayeen waa dhul aad u balaaran laakiin dhibaatada jirta waxay ahayd
masaaxada intaa la eg dadka ku nooli oo hanti iyo dad iyo cilmi iyo garasho iyo hub iyo technology-ba ay ka buuxdo dad is haysta ma ahayn midaysan ma ahayn dad kala baabay bay ahayn watilka al-ayaam nudaawiluha bayna an-naas waatan nudaawilku way soo socotaa waatan dhacaysa bade oo soo baxaysa marka dadka muslimiintu say u kala qaybsanaayeen dhowr qodob oo kooban tan ka soo qaadanay ta koowaad khilaafada cabaasiyiinta xilliga qarniga lixaad khilaafada cabaasiyiintu waa tii samaysantay marka hore haddii taariikhdeeda laga hadla dawladdii umayintu markay dhacday qarnigii labaad bilowgiisii hijriga 132 dawladda cabaasiyiintu marka xilligan waxay tahay waa mid aad daciif ah oo Ciraaq waliba Baghdad iyo Mosul iyo intaa yare Anbar bay ka talisaa wax dhul kala ma jirto waa magac ahaan bay dhulka kala ku xukuntaa sawir bay ku xukuntaa marka ninka khaliifka ka dawladda cabaasiyiinta oo sida boqorka Ingiriiska oo kale boqortooyada Ingiriiska oo kale soo wadamo Commonwealth la yiraahdo dhowr iyo 60 dal oo Ingiriiska hore u gumaysan jiray oo boqorka Ingiriiska magac ahaan hoos tagay waxaan ku jirin Mareykanku ma ku jirin uu soo gumaysan jiray kuwa kale oo dhan way ku jiraan Canada Australia New Zealand Africa iyada iska badaaba xawaash waa wax isaga Ingiriiska magac saaso kala ah iyo halka Baghdad lafteeda oo khaliifku degan yahay caasimadii ay tahayna waxa ka awood badnaa ninka khaliifka ra'iisul wasaaraha ka awood badnaa mar walba ra'iisul wasaaraha ka awood badnaa ra'iisul wasaaruhu marna Turkiga buu noqon jiray marna Beershiyan buu noqon jiray laakiin xilligan imika aynu ka sheekeynayno ku soo haagtay waxay noqotay Beershiyan oo Shiica oo Ibn al-Qami loo oran jiray marka nimanka cabaasiyiinta ee xukunka isaga dambeeyay magacyo waaweyn bay u xambaarsan jireen aad u waaweyn maaragtay de magaca khalifa weyn bade khalifatul muslimiin marka la yiraahdo waa magac weyn magac kale oo lagu daro Xasan Cali ah lagu yiraahdo dil doonay kaasaba de isaga laftiisu maaragtay magac weyn laakiin magacaasi iska sifada uu yahay mooyaane magaca uu yahay mooyaane wax ummadda muslimiinta danaheeda lagu ilaalinayo ama hantideeda lagu ilaalinayo ama itaal darideeda lagu ilaalinayo ama cadaalad lagu faafinayo meesha marka kama jiraan ummadda in tiirarka muslimiinta ku dhisay waxa kamid ah amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wanaag in dadka loo sheego xumaantana iska daaya la yiraahdo ma jirto waxyaabahaas xilliga ma jiraan waxaaba iska badnaa dhageysiga xafladaha iyo muusiga iyo maaragtay tartanka loo qabanayo suugaanta loo qabanayo de heesaha iyo suugaanta in la dhageysto ma xuma laakiin waa inay ummaddu dhinaca kale ka nooshahay waa inay dhinaca kale ka nooshahay laakiin marka kuwan laga dhigto hadaf laga dhigto waa baaba bay marka noqonaysa yani nolol aan ku habboonayn qofka shakhsiga iyo ummadda muslimiinta xilliga ku noolayd taas qolada koowaad bay ahaayeen qolada labaad waa Masar Sham Hijaz iyo Yemen waa dhul ballaaran oo dhulka muslimiinta kamid ah Sham waa marka dhulkan Suuriya Urdun Lebanon Falastiin intay ku yaalaan baa Sham la yiraahdaa walibana marka meesha la joogo Sham waxa la yiraahdaa Dimashq iyo agagaarkeedu magac ku baxay laakiin Sham marka loo hadlayo juqraafi ahaan loo hadlayo waa dhulka ballaaran weey magacu halka ku baxay Hijazna waa Makiya Madiina halkii ku yaalaan Masarna waa iska garanaysaa iyo Yemen halkani gacanta ku haya dawladdii Ayuubiyiinta oo Salaaxadiin al-Ayuubi dawladdii uu aasaasay hore wayna uga soo hadalay dawladdii Ayuubiyiinta iyo sidoo ahaan maaragtay ninka Salaaxadiin al-Ayuubi iyo arintiisa marka waa ku awowga u ahaaba meeshan xukumay hadda qoladani waxa weeye xukunkaas la isku wada haystaa maalin walba laba ilmo adeera laba walaala dagaalamaya ka Xamaa jooga iyo ka Ximis jooga dagaalamaya ka Ximis jooga iyo ka Dimashq jooga dagaalamaya ka Dimashq jooga iyo ka Xuuraan jooga dagaalamaya ka Masar jooga iyo intana iyaga xukuma inta aan sheegaynana Yemen Masar Sham marka Masar unba is haysata oo dawlad Qaahira laga wada xukuma oo suldaanka joogana uu yahay de mid maaragtay
kolka hadii lagu soo duulo leeyahay Masar difaacan karayso markaa laakiin kuwa kale ma jirto marka mid walba midka kale uu ka shakisan yahay iyagoo isku foogan marka Masar way madax banaan tahay Sham way ka madax banaan tahay Xijaaz way ka madax banaan tahay Masar bay ka madax banaan tahay Sham dhulku saasa imaaraad bay u kala qaybsan yihiin hatta Hims iyo Halab iyo Dimashq ba ya imaarada kala ah Falastiin iyo Urdun way kala go'an yihiin oo imaaradii Saliibiyiinta ka haray Salaaxadiin isagu aanu ka xoreynin Caka Tripoli Trablus oo Lubnaan ku taala iyo Caka Falastiin ku taala labadaas way ka jiraan iyo Beirut oo markaa magaalo weyn ah laakiin county ah imaara yar iyaduna oo waaga dambe ay haweeney xukumi doonto saddex baa halka ku taala imaarado yar Andakiya waa laga soo qabsaday xagan kale maxaan ku raahdaa Qudus waa laga qabsaday Salaaxadiin baa ka xoreeyay laakiin ka Qudus jooga in Salaaxadiin ku abtirsanaya iyaka Hims jooga oo dhisna dhinaca buuraha uu xagan bacalba ku dhinaca kale ka joogay iya kan isku Tripoli jooga Lubnaan ba isku ayay kala kaashanayaan oo wuxuu leeyahay iskaale soo tuko Quduso in adeerkay aan la dagaalamay caawiyo ciidan iyo hubiyaysi yuu leeyahay taasina waa sax qolada saddexaad waa bilaadul Maghrib wal Andalus dhulkan imika Morocco iyo Algeria iyo Tunis iyo ay ku yaalaan Liibiya halka ka bilow ilaa Spain iyo Portugal oo dhulka muslimiinta ahaan jiray iyaguna Andalus iyaga halkaas waxa xukuumad dawlad muwaxidiin dawlad la yiraahdo halkan ka bilaabantay Mali bay ka bilaabantay wadankan imika Mali la yiraahdo ayay ka bilaabantay dawlad muwaxidiin niman madmadow baa bilaabay markay Carabtii iyo dawaariqi soo dalaayeen kolkaas ay halka ilaa marka waxay mideeyeen iyagu marka dhulkaas oo dhan bay mideeyeen Maghrib iyo Andalus way mideeyeen muwaxidiintu marka dawladdaas dawlad aad u awood badan xoog badan weeyaan bariga Liibiya soo gaadha galbeedna Morocco gaadha Andalusna waxay gaadhaa waqooyi koonfurna waxay gaadhaa halkan baashay ku yaalaan maxaan ku raahdaa Ghana iyo Nigeria ku yaalaan bay gaadhaan koonfurtana gaadhaan wadala ardu balaadho soo markays waqooyiga Afrika galbeedka Afrika iyo xaggii shisha Yurub loo talaabo iyadu way haysataa markaa laakiin waxa xagan ka soo socda ma oga oo caalamku sidan maanta ma aragtay wixii ka dhaca halka ugu dambaysa aan markaa ogaanayno ma aha caalamku waa in sanad kadib la ogaadaa wixii dhacay laakiin dawladana hoos u dhac baa ku yimiday dagaalka meesha Uqaab la yiraahdo Morocco ku taala ka dhacay 609 hijrada ka dhacay hoos u dhac baa dawladda ku yimiday dawladda afraad ama meesha afraad waa Khwarazm iyadna waa dawlad ballaaran dawladani waa mid aad u ballaaran dhulka muslimiinta Asia ku yaala intiisa badanna Khwarazm buu waqtiga hoos yimaada xadkeedu Shiinaha ayuu bari gaadhaa galbeedna waxay soo gaadhaa Iran iyo Shiina inta u dhaxayso oo dhul intee leeg 10,000 kilomitir way ka badan tahay iyo dawladdaasi haysataa caasimadeeda Armajanta ba markii hore loo oran jiray laakiin markan dambe xilligan hadda aynu ka sheekeynay qarniga 7aad markii la gaadhay waa Samarqandi Uzbekistan bay ku taala caasimadeedu ku taala waa dawladda ugu ballaaran ugu awoodda badan laakiin cid kasto ay daris la tahay khilaaf ka dhaxeeya Abbasiyiinta halka Iran bay iska soo gaadhaan dagaal bay isku hayaan Hindiya dawlad Ghooriyiin la yiraahdo muslimiina ayaa xukunta Ghooriyiin dawlad la yiraahdo Maxamuud Ghoori waa Hindiya oo dhan ayaa xukunta waa qoladan way dagaalamaan Afghanistan bay mar walba isku jafaan buuraha Hindukoosh iyo Himalaya kala joojiya mar walba buuraha ay isugu talaabay waayeen xuduud ah dawladdan dhibaatada haysata Khwarazm xagga culimada waa culimo badan oo xagga cilmiga sayniska dhakhtarnimada fiqiga xaggaas waa aad bay ajiib ugu ahayd cilmigaas aad buu ugu badnaa meesha laakiin xagga siyaasadda marka la yiraahdo mashaakil bay ku qabtay dawladdan inqilaabka ku badnaa hadiya jeer waxa suldaankaas la inqilaabaya waxa loo inqilaabay inankiisa ama walaalkii ama adeerkii baa cid la soo heshiini isagina waa yahay namariyo boodhan oo khalaas
suldaanka maanta meel lagu macsuumo waa la dilay yaa waa la wareegay xukunka kana la wareegay waa un halka dhakada sare marna cidnina kuma nagaanay qalabtaan baa la hayaa qalaftaas baa la isla hayaa waxa kale oo xilligan dhibaatada ku sii badisay dumarka qasriga aad faragelin ugu yeeshay dumarka reer Khwarazm ee amiiraadka marka meesha jooga iyaguna waxay la kala safan yihiin amiirada ay la kala safan yihiin mid bay tani waa wiilkeedii kani ayay u tahay mid baa waa xaaskeedii u yahay iyagii baa marka la kala safanaya marka haweeneyda de amiiradaana kulay waa la ixtiraam bay qasriga dhexdeeda ku leedahay tashanaad waa hindiya dalka hindiya waaga marka waxa la oran jiray waa Pakistan iyo hindiya oo dhan baa hindiya la isku oran jiray qaarada dhulka u dhow qooriinta xukumi jiray laakiin nimankan ay haystaan Khwarazmkaas dagaalkoodu ma joogsado marka way isla jabeen iyaga isla rafaaday hadii marka cadow nidaamsan oo kanada soo socdo kale aanu ka sheekayn doona uu yimaado labadooda uu jiiraya markaaba lix waa Faris waa qayb Iran kamida ilaa Iran bay soo gaadhaan baan nidhi Iran inta u dhaxaysa Iran tii hadhay iyo Iraq inteedii kale oo iyadana intaas soo gaadhin Khwarazmku ayna soo gaadhin oo khilaafada Cabbaasiyiinta ku dhagan de waxa ka jirta dawlad niman la oran jiray Ismaaciil la oran jiray Shiica marka nin Xasan as-Sabax la yiraahdo aasaasay asalkoodii hore xilligii dawladii Seljukiyiinta aasaasay qalcad weyn oo alamaata la yiraahdo meesha ku taala buur dusheedna ku taala aadna meel u adag oo la fuuli karina dib badan cid isagu ogolaada mooyaan ayaa xarunta laga maamulaa marka niman dib badan oo waxa weeyaan isku dirka dadka iyo ka shaqeeya marka qooriyiinta saameyn bay ku leeyihiin Khwarazmka saameyn bay ku leeyihiin Cabbaasiyiinta saameyn bay ku leeyihiin waxba ugu wada jira dadkaas oo dhanna way isku diraan inay marnaba midnimo iyo ka taliyaan iyo isu imaatin ka taliyaan warku markuu iyaga soo gaaro kuwa midnimada ka talinaya kulka waa laga takhalusaya marka qolada dilalka iyo waxa adeegsatay oo u badnaayeen qolada marka Ismaaciiliintu waxay diintana galin jireen falsafad dood falsafada ay galin jireen mesela waxa ku jiray qolo iyaga la yiraahdo xuruufiyiintu niman halis ah waa niman aqoon-yahana dhalinyar iyo garmadoobayaal u badan buugaag fara badan akhriyay waxay tagayaan marba meesha dawlad islaam ah oo is haysata ay ka jirto marka waxay ku doodayaan adduunku waa xuruufun wax kala ma ba ta ja hade xurufta de alif ba ta saada weeyaan xuruftaasi ku leegaysiinayaan caalamkii oo dhan iyo noloshii oo dhan iyo wixii oo dhan mushkilada jirta marka xuruufiyiintani waxay xiriir toos la leeyihiin baashi isha Vaticanka Roma halka yar bay calaamad kaga taala ninka soo yeekay shaar gacmo dheerayaal badan xidhan yihiin laakiin halkaas ay calaamad yar kaga taala marka waagi dambe dawladda Cusmaaniyiinta kuwii rafaadiyay xuruufiyiintaas ka mid ahaa waana qolooyinkan ka soo dhaxbaxday marka Ismaaciiliintu miyay og yihiin nimankan inay nimanka ku jiraan mise ma oga mooy Ismaaciiliintu marka waa qolo khatar ah ayay ahaayeen dhammaantana waa kuwan Iran iyo Yemen iyo haysta say u gali gaadheen dad ogtihiin Suuriya inkastoo Suuriya iyaga aanay haydo nusayriyiin ahaayeen laakiin way ku nool yihiin meesha iyaguna waxay yiraahdaan nusayriyiintu anaga wayna rafaadiyeen qoladii meesha haysatay qolada toddobaad waa Anatolia ama Turkiga halkan imuu ku yaalo Anatolia inta Asia maaha inta xagga Yurub kuma jirto meesha waxa xukuma iyaguna marka nimankii loo oran jiray Seljuqada Rome oo Seljuqiinta ka hadhay laakiin Seljuqiinta Rome xaggana Iraq iyo Sham waa laga qabsaday laakiin xaggaas Anatolia ku hadheen dawladda Byzantine xad iyagu marka la leeyihiin waaga hore marka Alab Arsalan iyo nimankaasi markay ay joogeen iyo isaga kuwii ka dambeeyay Malik Shah iyo Mas'uud iyo markay joogeen niman aad u khatar bay ahaayeen laakiin inta wixii ka dambeeyay khalaas hadda waxay ku hadheen inta Anatolia oo caasimadooduna Qooniya ay tahay cidii iyaga soo doonata si fiican bay isaga celiyaan laakiin iyaga laftoodana de mu'amaraadka iyo shirqoolka iyo balaayada ku badan ya ku badan halka hadaba marka inta la eego toddobadaas bay dunida islaamka u qaybsan tahay
ummadda islaamku marka waxaad arkaysaa inay tahay meel rafaadsan kala googo-an diin ahaan aanay dadkiis haysanin culimada markaa wax sheegi karta oo maaragtay aqoonta leh wanaagsanna laga yaabaa inta xerta oo ay masaajidka la joogtay iyo inta baa dhageysanaysa dadka kale hadalkooda inaanay saasba maaragtay aanay u sii maqal qoladaas waa qolada koowaad quwadda labaad ee xilligaa jirtay qarniga 7aad ama 13aad waa nimankii salabiyiinta la oran jiray dawladihii reer Yurub baaranta ay dhulka muslimiinta soo gaadheen ay Falastiin baan ka sheekeynay inay qayb ka haysteen marka Caka iyo Tripoli oo imika Lubnaan ku taalay ay haysteen xaruntooda ugu weyn waa Yurub galbeedka Yurub bay deganaayeen oo xaruntooda ahayd iyaga muslimiintana dagaalo badan baa dhex maray dawladaha xilligaa jira waxa kamid ah dawladda Ingiriiska Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga Talyaanigu dawlad ma ahayn xaqiiqada marka laga hadlo xilliga qarniga 13 dawlad ma ahayn qarniga 18 19 uu dawlad noqday isagu imaaradu ahaa imaarada Napoli imaarada France imaarada Roma imaaradan buu isagu ahaa laakiin Talyaani de magaca wala soo oran kara marka muslimiinta iyaga dagaal baa ka dhaxeeyay waa run iyagoo iswada bahaysta wada socdo dagaalku ay iman jireen waana soo aragnay de kuwa iyagoo wada socda dagaaladii Shaam iyo Masar ka dhici jiray xaga kalena Isbaanishka iyo Boortaqiiska oo iyaguna dagaalo joogta kula jiray muslimiinta Andalus kula jiray iyaguna marka la eego xilligan waa cadow la is yaqaano dagaalka iyaga muslimiinta u yaalan waa dagaal qawaacid la weey qawaacid buu leeyahay waxba lagu heshiin karaa waxna waa la isku dili karaa dagaalka muslimiinta iyo nimanka salabiinta u dhaxeeya inkastoo iyaga laftooda soo xoosnaa mararka qaar kood oo magaalooyinka qaar kood ay qabsadeen gabi ay dadka dhan baabiin jireen haddana hadii wax lagu heshiiyo waa lagu heshiinay laakiin nimankan aynimka noo soo socdaay iyagu warka ma yaqaanaan heshiiska waa inaad iyaga hoos timaado bas inaad iyaga ku biirto hoos timiday baa iyaga heshiis ah wax kale heshiis uma yaqaanaan marka iyaguna waxay u qaybsadaan boqortooyadii Byzantine oo Constantinople ay caasimad u tahay qayb Asia kamid ah qayb Yurub kamid ah xukunta cadow taariikhiyana muslimiinta la ahaa dagaalo fara badan ay muslimiinta soo dhaxmareen laakiin waqtigan hadda la joogo way Itaaliya raatay way daciiftay nimanka Seljuukiyiinta aad u naafeeyay iyagii Seljuukiyiintu way isla daciifeen markaa laba boqortooyada Armenia waxay ku taalaa galbeedka Iran waqooyiga Iran iyo galbeedka Turkiga macnaha waa dhulka muslimiinta ku dhex jirtay kulkii dawladda islaamka waa weyn jireen gobol kamid ah Armenia ay dawladda islaamka oo xaakimka Armeniga xukuma waa Kristaan laakiin wuxuu hoos yimaanayay xaakimka muslimiinta ka sareeyo uu hoos yimaanayay Seljuukiyiintu markay joogeen ka Seljuukiga uu hoos yimaanayay Cabbaasiyiintu markay joogeen ka Cabbaasiga Umayyiintu markay joogeen ka Umayyiinta ganacsigooda iyo in la isdhex socdo iyo ducaadu inay dhex maraan iyo dad badan inay iska muslimaan in iska caadi bay ahayd marka laakiin dagaalka ugu badan iyagana Seljuukiyiintu ka dhaxeeya waana isku dhow yihiin oo galbeedkii Anatolia jooga saddex boqortooyada Karaj ama Georgia imika wadankan Georgia la yiraahdo halku ku yaalo waa Yurub la galay marka oo wadankan Azerbaijan la yiraahdo iyo xagga ay ka xigtaa xagga Ruushka ka xigtaa Georgia marka dawladda halka ka jirtay dawlad waxay ahayd waaga hore bilaadiin ah laakiin xilliyada way kristaamowday iyaga iyo Khwarazmka iyo xuduudda Khwarazmka iyagana dagaal ka dhaxeeya afar waa imaaraadka ay salabiyiintu ku leeyihiin dhulka Shaam iyo Falastiin iyo Turkiga oo inihii aanu Salaaxadiin ku xoreynin iyaga aanu ku xoreynin Salaaxadiin aanu ka qabsanina oo waxa weeye waa Andakiya Caka iyo Tripoli iyo Beirut oo mar damba waa magaalo yar iyo magaalo inta waa degmo yar iyo xoos yimaada ayaguna meelahaas ay joogaan oo wixii xadiin ka dambeeyay waa Andakiya Caka Tripoli Sayda iyo Beirut shantaas ay ku hadheen shanta magaalo ayay ku hadheen wixii inta ka dambeeyay ma awood badna oo dhulka muslimiinta ma qabsan karaan taageero weyn xaqi dawladooda uga ma karto dawladooda lafteedu waa daciif laakiin cadawga iyaga hor joogay muslimiintii ma aha mid naflo iyaga laftooda wax yeeli kara ma quwadda saddexaad ee marka soo baxday waa Tatar ama Mongol waa tani markaan ka sheekaynayno
quwaddaa saddexaad ee soo baxday bal waxa ay kaga duwan tahay quwadaha kale iyo taariikhdooda waxaynu eegi berri baynu ka bilaabay haddii ilaahay yidhaahdo halkaasaan maanta ku joojinaynaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.